waxaadin wadaa warar fiican aad marka waxaan ka codsanayaa inaad sabarto oo si fiican aad dhageystid arrintan waa arrintii ku saabsan heshiiskii Shalay dhexmaray Yuhuudda iyo Somaliland si fiican dhageyso degdegin warkaan marka ku fiic doona wax fiican aan ku hay adduunka dhan iyo waxyaabaha soo kordhay iyo arrin ku saabsan Saudi Arabia iyo Masar iyo Imaaraadka iyo Algeria iyo macala Xuutiyiinta oo ku saabsan arrintii Shalay iyo hadalkii Shalay oo ka dhawaajiyay Netanyahu waayahay Israa'iil Shalay ogtihiin wixii samaysay marka haddii baxdo halkaas ay tagto maxay heli doontaa horta waxyaabaha ugu horeeyay heli doontaa wuxuu yahay dekad diyaarsan dekadaas oo ah dekadii Berbera ee Imaaraadka dhistay oo ku taalay magaalada Berbera ee waqooyi galbeed waxay heli doontaa marka dekadaasi waxayna ka dhex dhisan doontaa lagu leeyahay Elbor oo gaara dhirirkiisa 4 kilomitir kaasoo noqon doona lagu leeyahay wuxuu noqon doonaa meel laga basaaso oona laga duqeeyo Yemen macnaha goob oo xarun oo Yemantana lagu dhageysahay waxyaabaha ay wadaan jawaasiistooda iyo rufiyaanadooda halkaas ay joogi doonaan meel waxay noqon doontaa Yemanta laga duqeeyo halkaas waxay u socotaa inay ka dhigato goob lagu badbaadsho laguna sugo ammaanka ganacsi mis ammaanka maraakiibta u socdo dekada Ilaad ee koonfurta Israa'iil waqtigiin dekadaasi waa la xiray way shaqo beeshay waxay noqotay fadhiid waxa ka shaqeeyna malaha ganacsiga iyo maraakiibta halkaas aadi jirtayna way istaageen Xuutiga xirtay marka ayadu waxay u socotaa in halkaas ay noqoto meeshii laga sugi lahaa ammaanka iyo nabadda dekadaha Israa'iil in ugu horeyso dekadii Ilaad su'aal muhiim ayaa meeshan taalo su'aash meesha waxay tahay arrintan hadda maxaa keenay sida ogtihiinbo arrin kale ku galaya dhageyso marka si fiican faham arrintan waxa kamid tahay waxyaabaha oo dagaalkan iyo dekadan iyo dhulkan hadda matqaan i'tiraafkan iyo wasal xiran yihiin wayna isku xigaan sida ogtihiinba anaga dhanaan fahansan ayay ogtahay Yuhuudda ogtahay inuu dhici doono dagaal u dhexmar doono Yuhuudda iyo muslimiinta Saudi Arabia si fiican u fahanaya Saudi Arabia ay noqon doonto goobtii muslimiinta miday lahayd oo halkaas ka soo bixi lahaa nin magaciisa lahay Al-Mahdi marka maxaa marka ujeedadeeda waxay u socotaa in halkani oo mataqaana la yiraahdo Somaliland ay ka dhigato goobtii laga duqeey lahaa mise laga weerar lahaa markay midoobaan muslimiinta kooma tahay waxa kala jiray si fiican faham arrinta marka goormay bilaabatay oo hadda Somaliland iyo Yuhuudda dhexmartay daraato saadin sheegay Masar ayaa waxay iclaamisay in ay sameeyay doonto dhisid dekad magaceeda la yiraahdo Casab dalka Eritrea waxay sheegtay in ay dhisi doonto dekada Casab inay sameeyay doonto wado u dhaxayso Addis Ababa iyo Casab taasoo noqon doonto meel hadhuut lacal arrinta hadii xumaato meeshii laga waxyeelay lahaa Ethiopia iyo caasimadeeda marka kadib waxa dhacday Abiy Ahmed inuu asan oo dhiso oo ku sameeyay dayactir Elbor oo ku yaalo gobol magaciisa la hayo Shangol oo kamid ah gobolada Ethiopia halkaas marka uu sameeyay inuu faangaray asi Imaaraadka inay faangarayaan ay maalgeliyaan ayna hubsiyaan ayna keenaan diyaaradaha droneska maleeshiyaadka oo Suudaan ka dagaalama magacooda Allah dacmo sariic iyo maleeshiyaadka lin oo Allah Yusuf Tako ay hogaaminayaan ayagoo u socdaan ay qabsadaan meel yiraahdo gobol magaciisa la yiraahdo Blue Nile iyo qabsadaan magaalo magaceeda la hayo Demons iyo biixireen halkaas ku yaal magaciisa la hayo Rosaris ay u socdeen marka maanta bilaabeen in halkaas weerar ku qaadaan kadib markii Israa'iil ku dhawaaqday in i'tiraaf si doonto Somaliland way weerareen Blue Nile ilaa haddana halka oo ka jiro Suudaan uu cakiran yahay ayadoo u socoto inay qabsadaan dekad magaalo magaceeda la hayo Bur Suudaan taasna waa Ethiopia Shalay waxay ku dhaqaaqday arrintaasi maanta iyo Shalay markii Israa'iil ay iclaamisay in Somaliland i'tiraaftay way la fahamtay marka guud meel ay dhig marka xiraan ku sheegaa tan waxa la yiraahdaa Saudi Arabia kan waxa la yiraahdaa Masar waxay leedahay xuduudo si fiican la soco xuduudaha Masar waxa kamid ah xuduud bari iyo taqaan xuduud badeed iyo ka cirka iska dhaaf aan ka soo tagno kan oo bariga ah kan dhulka ka soo tagno kadalika Saudi Arabia hadan ka soo tagno xuduudaheeda oo dhulka aymaana marka xuduudaha badda Masar waxay leedahay xuduud badeed xuduudaha Masar ay leedahay ku badda waa labo mid wuxuu ku yaalaa waqooyiga Masar mid wuxuu ku yaalaa koonfurta kan waqooyiga waxa waay kan ku yaalo oo la hayo badda Mediterranean-ka mise badda cad sida loo yaqaano badda casmaaya badda cad oo Yurubtan iyo Turkiga iyo Greega iyo mataqaana Cyprus aado koonfurta marka iyo bariga koonfurta Masar iyo bariga Masar waxa ku yaalo baddaas magaceedu waxa la yiraahdaa badda cas waana xuduudeeda oo koonfureed xuduuda koonfureed si fiican u faan eragaas Saudi Arabia laba baday leedahay
bad waxaa la yidhaahdaa baxr alkhaliij, waa badii khaliijka oo ayada iyo qatar iyo imaaraadka iyo kuwait iyo baxrayn iyo iiraan ay wada wadaagaan. halkaasuu ku yaalaa, wuxuu ku yaalaa bariga sacuudi arabiya, galbeedka sacuudi arabiya iyo koonfurteeda waxaa ku taalo bad oo laha badda cas mise albaxr alaxmar mise the red sea. koonfurteeda waa marka muhiimadda, koonfur sacuudi arabiya waxaa ku taalo the red sea. marka ujeedada meeshaas jirta maxay tahay? waxaa lagu leeyahay Israa'iil ayaa waxay u socotaa in ay qabsato koonfurta sacuudi arabiya iyo koonfurta masar. halkaasna waxaa waaye hadday soo degto arrintan marka hadda Israa'iil ay ka bilowday Somaliland, hadda wax bilowday asaaskeedna hadda maaha, waa arrin weligeed ku fikri jirtay kumanaan sano, dhowr sano 20-40 sano ka hor ka fikri jirtay. waayo dadkan hamigooda wuxuu ahaa aslanba inay samaystaan waxa la yiraahdo Israa'iishi weyneed, dhulkii weynaa Israa'iish dhul balaarsigii ayuu ujeedkooda ahaa. taasna oo ah inay qaataan dhulal oo ka mid yahay Masar, ay ka qaataan 3 meelood, hal meel Masar inay qaataan, Suuriya, Lubnaan, Urdun, Ciraaq ilaa Kuwait, ilaa Saudi Arabia ay qaataan Madiina al-Munawwara meesha la yahay Khaybar. waa ajindahooda, waa mabda'ooda, taariikhiyan, juqraafiyan, wiligooda caqiidadooda ku jirtaa. caqiidada iyo fikirka iyo ideolojiyada oo Yahuuda weligeed saasay ahaan jirtay inay samaystaan dhul balaarsan iyo dhulalkan ay qabsadaan. taasna kulliina ogtihiin. waayahay hadda marka Israa'iil waxay heshiis la gashay Somaliland. Somaliland marka halkay ku taala? Somaliland waxay ku taalaa Khaliij al-Cadan, Misbaab al-Mandab oo ah koonfurta Saudi Arabia, badeeda xuduudeeda koonfurta Saudi Arabia iyo xuduudda koonfurta dalka Masar ayay ku yaalin Soomaaliya. arrintaas maadaama ay soo dhamaysay Imaaraadka, Yahuudana uu ku dhawaaqay, Imaaraadka iyo Yahuud waxay u socdaan in Saudi Arabia iyo Masar ay ka qabsadaan xuduudooda koonfureed oo ah hadda meesha aan sheegay Somaliland oo noqon doonto xuduudda koonfureed ee Yahuud. hadhood waxay noqon doontaa meeshaasi meesha laga weerar lahaa Saudi Arabia iyo Masar. marka Masar xuduudaheeda oo waqooyi iyo xuduudaheeda kale amaanay ahaayeen, cabsi kamaysan qabin. laakiin hadda waxay ogaatay xuduudii badeed ee koonfur in halis oo aga imaan karo oona ay noqon karto meesha laga soo weerar lahaa Saudi Arabia. kadaalika way sheegatay, way qaratay in halkaas ay noqon doonto meesha laga soo weerar lahaa halistana kaga imaan karto. marka arrinta ma aha in oo Yahuuda ay amaansato maraakiibteeda iyo badeeda iyo badan cas oo ganacsi ugu furan kaliya maahe, iyo inay xuut iska duqayso kaliya maahe. waxa waa fikirkeeda hore ee wada jirtay oo caqiidadeeda ku jiro in ay samaysato meel ay ka soo weerar karto Saudi Arabia iyo Masar dhanka badda ee koonfureed. wayna heshay ayadan kaligeedna maahe, ayadii Imaaraadka oo garab isku siinayo oo halkaasi yani ku dadaalayo inay noqoto ayna ka dhigaan furun dagaaleed oona laga weerar karo Saudi Arabia iyo Masar. hadda dagaal ma jiro, laakiin waxaa la rabaa in Masar iyo Saudi Arabia la qabto, la ceejiyo oo la geliyo oo aan la gelina. maxaa yeelay waqooyiga Israa'iil waxay ku leedahay waa ogtiin maamulkeeda ka jiro, koonfurtana saldhigay ku leeyihiin. marka waxa Saudi Arabia iyo Masarba koonfur iyo waqooyi waada ka xignaa iyo bari intay aadi kartiin. Israa'iil ma rabto inay ku ekaato dhulka hadda ay joogto, xuduudahan hadda ay leedahay uma socotee xuduud balaarsi, dhul balaarsi ayay u socotaa. haddana fursadii ay raadinaysay oo ayna ku fikirayso hamigeeda ahaa inay hesho meel xuutiinta ay iskaga difaaci karto, ay ka duqay karto, iyo xarun hadhowti haddii arrinta ay xumaato oo noqon doonto meeshii oo laga weerar lahaa labadan wadan oo ah wadamo oo tiir u ah ummadda islaamka, oona ah meel hadhowti markay Israa'iil ay bilowdo ay ku dhawaaqdo dhul balaarsigeedu oo ku jiro caqiidadeeda meesha ka soo bilaabo lahayd dhul balaarsiga Masar ay kaga qabsan lahayd meeshii ayada ay ku haminaysay Saudi Arabia ay kaga qabsan lahayd Madiina al-Munawwara ilaa iyo wixii ay rabtay. marka hadda waxay ku guuleysteen in Masar iyo Saudi Arabia la geliyo oo macnaha cun qabateen oo koriyo hoos. hadda marka waxaa loo yahay maxaa xal ah? xalalka way bateen. Saudi Arabia iyo Masar way wada hadleen sirdoonkooda. arrintu waa sirdoonnimo, sirdoonkay wada hadleen. waxaa la yiraahdaa maxaa xal ah? koo horta waxaa la yiri waxaa xal inoo ah inaan la heshiino xuutiga inaan la heshiino oona aan samayno waxaa la yiraahdo cunqabateen oo lagu sameeyo markab iyo diyaarad iyo wax walbo oo aadayo Somaliland, taasoo ah in la jaro gacanta oo Imaaraadka ay ku leedahay geeska Afrika, in la jaro
meel allaale mas-il walba oo Ethiopia kaalmo ay ka helaysay macnaha meel allaale meeshii oo Ethiopia hub ay ka helaysay mise taakuleen ay ka helaysay in la jaro taasoo ah in la jaro wax allaale wixii markab ahaa iyo diyaarad ahaa ee u socdeen dekada Berbero mise Somaliland galay xootigana wuu sheegay inuu jari doono aysan dhici doonin in la arko maraakiib oo aadayso Somaliland oo tagayso Berbero marka waxa lagu heshiiyay in oo la jaro taakuleyntii imaaraadka u fulinaysay Ethiopia taasoo oo noqon doonto in Ethiopia ay wayso hub laga imaan doono Somaliland marka waxay way doontaa hubkii ay ku dagaalamaysay inay sii jirtay reer Suudaan iyo maleeshiyaadka wallahi dacmo sariic kooxda Xamiti waxaa la yiri oo la qorsheynayo hadda in la arag diyaarad iyo markab oo galayo dekada Berbera yaa la arkina lahay taas waxa loo adeegsan doonaa lagu leeyahay waxa loo adeegsan doonaa maraakiibta dagaalka Saudi Arabia ee leedahay iyo kuwa Masar ayagoo iskaashanayo waxay noqon doontaa marka halkaas in la arag lug imaaraad oo Somaliland galayso waa jiri doonaa waa la jari doonaa maxaa kale asaas African wuxuu yiri hala jaro meel allaala meeshii Ethiopia ay taakuleen ka helayso mise taakuleen ugu imaanayso meel kasta Ethiopia hub loogu keenayo mise hub loogu soo gelihayo hala jaro kaalmo iyo taakuleen iyo meel walba Ethiopia waxay ka helayso asaas Africa yiri Masarna waxay ku dhawaaqday sheegta hadda si degdeg ah inay dhisan doonto dekadii oo casab inay dhisan doonto garoon diyaaradeed kaasoo noqon doono meel oo laga duqeeyo wax allaal wixii ka soo gali doono halkaas dhanka Berbera ayna noqoto meesha laga wardiyay lahaa oo la fiiri lahaa wixii u soo socday wixii ka baxayo Berbera xaaladdu soo xumaatay marka waxa la yiri il dambe iyo lug dambe iyo gacan dambe imaaraad ee leedahay Afrika lagu arkin hala jaraa yiri imaaraadka horta waa mid ugu horeyso arintan madaxda meesan dhihin asaas Afrika kaliya leedahay iyo sirdoonka oo maalmahan shiruuyo oo ugu horeeyo sirdoonka Masar iyo Sacuudiya iyo Algeria marka waxay yiraahdeen in aan la heshiino waaye xoutiyiinta ayna ka qaataan la yiri kaalin ayna ka qaataan gacan la dagaalanka imaaraadka iyo la dagaalanka arrimaha hadda ku soo kordhay geeska Afrika waxaan isfareen in ay la saaxiibaan xoutiyiinta ayna la heshiiyaan xootigan oo noqdo mid qayb ka qaadan doono la dagaalanka arrimahan hadda ku soo kordhay geeska Afrika waxa lagu heshiiyay lagu leeyahay in Saudi Arabia iyo Masar iyo Algeria ay gacan adag ay ka geystaan Soomaaliya ayna ku dadaalaan midnimadii iyo heshiisiintii iyo dib isku keenidii ummadda Soomaaliyeed sidaas ay yiraahdeen gacanta Ethiopia imaaraadka Israa'iil ay ku leedahay hadda oo geeska Afrika in la soo jaro oo la waayo qorshaha Israa'iil ee damacsan tahayna in meeshaasi lagu hakiyo oo noqdo mid burburay anyhow lagu leeyahay Israa'iil maadaama ay ictiraaftay Somaliland Mareykanna uu ictiraafsan yahay Mareykan uu ictiraafsan yahay Trump baan wuxuu ku dhahay mugtan had diyaar u mihi laakiin maray ma doonto uu ictiraafi doono asana meeshaas wuxuu ka leeyahay qorsho Trump Somaliland kaliya kuma ka doono xataa wuxuu ictiraafi doonaa cid lahayo Puntland marka dadkan wuxuu qorsheynayna lagu leeyahay in la dhooro midnimada iyo nabadda dhulka Soomaaliyeed lana mideeyo waxay taageereen marka arinta gacanta ka baxaysa marka anaga wax aan cambaarayno waraaqan qorno iyo mataqaana aan hadalno arintu waxa halkaas ma aha imaaraadka iyo Israa'iil Ethiopia waxoodu waxa lagu leeyahay waxay marus inay dhaqaaqeen way socdaanbo arintoodu waxay maluusaa ficil ay maruusaa anagana hadal wax ma taraaye hadal badan ha ma buuxshay yiraahdeen kowde arinta marka anagana aan ka dhabayno si degdeg ah yaani mataqaana dhaqsi ah aan u bilaawno hadalkan hal iska joojiyo taasan waa mid hadda ayaga ay go'aansadeen oo mar dhowna la sheegi doono arinta hadal uma baahna la yiri ficil u baahan tahay marka adadijino ana dordorgelino si dhaqsi ah si arintaani ciidan oo mar hor ma taqaanayo sameeyay dhaqaaqa looga hortago marka arinta halkaas maruusaa marka waxa la rajeynayaa Saudi Arabia iyo xoutiyiinta heshiiyaan xoutina wuu sheegay isla hadoo bilaabay inuu sarcun qabateen markab uu imaanay Berbera way dhamaatay marka arintan sid loo maleynay kaliya maahay arintu waxay maruusaa mustaqbaliyan xataa caqiido yahuud waligeed ay wada jirtay halkan dhulkeena laga bilaabay waxna waa aad noo dhibo aan ka xumaano laakiin ma dhacayso Soomaalina midoobayso arintan waa mid Ilaahay muxuu yiri waasa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum laga yaabaa inay jiraan waxaan cibtiin laakiin khayr idin ah tamarka khayrkeena waaye waa tii aan ku midoobi lahayn dhalinyaro aan midoowno anaga hana la arko wana salaamantiin